haddaan korfeeyo inaan gaadho faashado gadafooyin dhacayo waayaha gartaajo waqtiga gunaanaday xasan cali khayre sanadkii 1968 ayuu ku dhashay tuulada Jacar oo ilaa 50 kiiloomitir u jirta degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud waxaana dugsiyada hoose dhexe iyo saraba uu ku dhameystay magaalada Muqdisho markii dagaalka sokeeye uu ka qarxay Soomaaliya ayaa sanadkii 1991 waxa uu qaxoonti ku noqday dalka Norway sanadkii 1994 ayuu isqoray jaamacadda University of Oslo ee dalka Norway isagoo ka qalin jabiyay sanadkii 1998 waxaana uu bartay cilmiga siyaasadda ee political science sanadkii 2001 ayuu shahaadada labaad ee masterka uu ka qaatay jaamacadda Heriot Watt ee dalka Ingiriiska khayre waxa uu haystaa jinsiyadaha Soomaaliya iyo Norway sanadkii 2002 ayuu ku laabtay dalka Norway waxaana uu ka shaqeeyay hay'adda dalkaasi u qaabilsan qaxoonta ee magaceeda loo soo gaabiyo NRC isagoo ka mid noqday saraakiisheeda sare xarunta dhexe hay'addu ay ku leedahay magaalada Oslo sanadkii 2006 ayaa waxa uu noqday madaxa hay'addaasi u qaabilsan Geeska Afrika waxaana xilkaasi uu hayay muddo 9 sano sanadkii 2012 ayaa xasan cali khayre waxa uu noqday madaxa shirkadda Ingiriiska ee la yiraahdo Soma Oil and Gas u qaabilsan qaaradda Afrika warbixin ay soo saareen guddigii cunaqabataynta ee qaramada midoobay ee wadamada Soomaaliya iyo Eritrea ayaa waxay ku xidhiidhisay inuu cilaaqaad la lahaa al-shabaab eedaasi oo uu beeniyay 23 bishii February ee sanadkii 2017 ayaa madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa uu magacaabay jagada ra'iisul wasaarenimo 1 bishii March ee sanadkaasi ayaa baarlamaanku cod aqlabiyad ay ku meel mariyeen maanta bishu ay tahay 25 July ayaa baarlamaanka Soomaaliya waxa codkii kalsoonida ay kala noqdeen xukuumadii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre isagoo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud